waxaa jiray nin xaas lahaa naa kaluu soo guursaday xaaskiisa koobaadna wuu ka qariyey ninkaas maxaa u dambeyn doona alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wala joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jimco walba iyo qiso cusub waxaa jiray nin businessman ahaa xaas uu guursaday maasha allah xaaska caruur badan u dhashay ilaahay uu barakeeyey caruurta alxamdulilah waa weynaatay businesska ilaahay waa barakeeyey meelo badan uu ka furtay ninkii marka wuxuu go'aansaday inuu naag guursado ninku wuu fikiray xaaskaaga ma u sheegtaa mise waa ka qarisaa wuxuu yidhi haddaa u sheegtid kolleyba kuuma ogolaanayse iska qarso haddana wuxuu ka fikiray qoftuu guursanaayo iyo meeshuu ku guursanaayo wuxuu is yiri magaaladan haddaa ku guursatid xaaskaaga faraha kaama qaadayso sidaa darteed wuxuu is yiri waxaa ila fiican magaalada kale aan businesska kale ku leeyahay inaan ka guursado magaalada kalena kama fogo 20 daqiiqo lee u jirta ninka sidii uu go'aansaday magaalada kale oo business ku leeyahay gabar ka raadsaday gabar fiican oo helay waalidkeedu doontay waa la siiyay uu guursaday ninka waa isugu toostay magaaladan xaaskii weynayd caruurta joogto magaaladana business yar uu ku leeyahay iyo gabadh yareeda joogto uu ku guursaday xaaskoobaad ma shakiinayna sababtoo ah ninka magaaladaas wuxuu ku lahaa business uu ku lahaa habeen laba habeen uu soo joogi jiray laakiin shanta habeen kale wuxuu la joogay naagta weynadu jooga siisan u shakin caruurtiisii oo naagta koobaad dhashay waa weynaadeen gabar kamid gabdhiisa marka waxay noqotay macallimad noqotay tii yareed maasha Allah caruuray dhaloysay tii weyneedna maasha Allah caruurtii waa u weynaadeen gabar kamid gabdhaheeda tii weynaad ayaa waxay noqotay macallin waxay shaqo ka heshay iskuul magaaladeeda u jira 20 daqiiqo iskuulkaasna waxaa dhigto walaasheed yar mana is yaqaana iskuulkii lagu soo dhaweeyay kalaasa lagu qoray kalaaskii marka waxay bilowday ardayda dhigata magacyadooda inay weydiiso adiga magacaa ilaa gabar ay soo gaartay magacaa hebel la dhahaa gabadhi weeyaatay markaas waxay ku tiri aabba hebel ma la dhahaa ha muxuu ka qabtaa business uu meeshan ku leeyahay okay hooyadan magaceed hooyadeena hebel la dhahaa macallimadii marka arrintii way rumaysan weysay xafiiskay tagtay waxay tiri waxaan u baahanahay gabadhaas yar folderkeeda malafkeeda u baahanahay waa loo sheegay halkaas uu ku jiraa la yiri meeshii tagtay waxay bilowday marka warqadii inay gidiso gabadha magaceeda aabaheeda hooyadeeda meesha waxaa ka soo booday aabaheed sharcigiisiaba ka soo booday ay diigi aabaheeda meeshan ku jiro gabadhi hal maray naxday way booday waxay sameysay garan weysay waxay sameysay kadib warqadihii meesha ku yaalay oo ku jiro aabaheed sharcigeeda ku jiray kaabi ka sameysay way qaaday waxay u geysay hooyada waxay tiri hooyo maanta waxaan ku hayaa sheeko weyn aabo naakal uu qabay yaa ku sheegay waxay tiri gabadhiisa aanba macallin u ahay macquul ma aan hal siimaad waa la suwaday yimid warqadihii la fiiriyay waa run waa duqi ay dhiigiisa meesha ku jiro sharcigiisa meesha ku jiro gabadhana asiga wax la sameeyay mala bariyahaasna telefoon la suwaca ma jirin waa la sugay marka ilaa uu ka yimaado maalmo kadib duqi iska socda soo galay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh afka loo wada taagaya maxaa jira si wuxuu jira waa idin salaanta ka jawaabta hooyadii soo boodi salaanta noo dambeysay maxaa sameysay oo maxaan sameeyay oo dhahay waxaa sameysay ma taqaanid ma aqaanay iisha maamadii warqadii la soo baxday warqadan soo ma taqaanid gabadhaana dhashay waa naga qarisay waana khayaantay beenaa noo sheegtay almuhim duqi maxkamad lagu furay duqi marka waxa uu cadaatay in sheekadana banaanka ay soo baxday faamilkana ay wada tashteen uu fikiray wuxuu yiri maqalha naagtaas aniga qabo gabadhana aniga dhalay wixii hadda ka dambeeyana habeen inta waaye habeenna xagga waaye maamadii qaylo maxaa ka waday saas wuxuu yiri marka hore waaba ka qarinay ixtiraam ahaan kaga qanay laakiin maadaam aa ogaatay waxaan kugu talagelin soo faarfaartay waa inaa cadaalad sameey marka habeenka meeshan joogo habeenka kalena meeshas kalan joogay ku talaga maamadii waa iswaashay waxay tiri wallahi billahi ma yeeray marka wuxuu yiri laba option ah haysataa habeen qaado hadaadan rabin xurriyada ugu dambeyntii walaal qisada waa qisa aad u qiimo badan wayna dhacday iyadoo kalena maalin walba ay dhacdaa sida darteed waxaan rabnaa inaan ka qaadano faa'iidooyinka ku jiro faa'iidada koobaad ninkaaga hadduu wax ka qariyo macnaheeda ma ahan inuu ka cabsanayo ka baqayo ama uu ku nacban yahay bal waxaa laga yaabaa inuu ku jecel yahay oo ixtiraam ku haayo uu diiday inaa walwashid ama aad walbahartid faa'iidada labaad haddaa ogaatid ninkaaga inuu meel kale ku jiro waxba hadaba gelin leena sababta waxay tahay haddaa daba geshid laba mid ay noqonaysaa
inaa walwal iyo walbahaar ku noolaatid ama gurigaaga inuu burburo oo furitaan ku dhammaaday aad tiraahayd waa ay khayaantay naa kalaa guursatay kuma rabe ifur uu ku yidhaah waa ku furay. faa'iidada saddexaad wax aan jawaabteeda faa'iido kuu keenaynin ha weydiinin, su'aalan waxba kuu taraynin ha weydiinin. haddaan example ku siiyo, yaa la hadashay, intee jirtay, halkeed ku maqneed, intee ku soo dhaxday waxyaalahaas. lan haddaa ogaatid waxba kama faa'iidayso. waxaa jirta su'aalooyin jawaabteeda inaa ogaatid aadan fiicnayn. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum. faa'iidada afaraad, ninkaaga social media baaswordigiisa faraha ka qaad. facebookkaaga baaswordigiisa maxaa waaye? whatsappkaaga itus, telefoonkaaga itus. ana whatsappkaaga keen waa arka haddaad tiraahd u shakisid laba miday noqon inay meesha wax ku jirin oo ku ceebowdid, taasna kuuma fiicno, kalsoonidaa meesha ka baxayso. faa'iidada shanaad, carruurtii ku socotaa. haddaa aabbahaa wax ka aragtid hooyada ha u sheegin, waa ceeb. haddaa hooyadaa wax ka aragtidna aabbaha u sheegin, waa ceeb. ogow adiga waxaa tahay cunug la dhalayaa tahay, labadana waa kuu siman yihiin. mid ka mid ishiisa inay kugu dhacdane waa laga yaabaa. sidaa darteed iska ilaali. waxaan ku soo gebagabaynaa ducadan, ilaahay hana asturo, ceebteena allah ha asturo, xumaantana allah naga ilaaliyo. walaalihiina kale usii gudbiya. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu jumcada soo socota iyo